دينا العفية سينا نقولها وحن قادن إن دين العفية هرت هل دين ولا عفية مجرته بل أنت دين اللي قارن ده كان العكتي ساعة اللي دولار بانو كتور بهال كانوا يسو طور يا ده كان العكتي سي اللي مركانو كهلا إنه فاينانسي أما معامل العقد كهلا إنه مالية waxa ugu horeeyo waxa weeye dalku inuu leeyahay currency lacag isagu uu leeyahay marka deyna la cafiyo wax kale oo dadka loo sheegay la way saakiintaha waxa loo geliyaa oo kale loo geliyaa madaxweyne farmaajo wuxuu rajeynaa abi axmed inuu kursi ku haayo axmed madoobe wuxuu rajeynaa suga uhuru kiyato inuu kursi ku haayo war allah ya war wadankan si dalkeen anaga iskale deyn cafintan Soomaaliya waliba la yiri bisha Maarso bishan hadda aan galna ayaa sanadkii hore la dhahay waa la cafinaya xagee horta deyn cafintaas maraysa taasbil digeey waay horta caalib baan hadii lagu celceliyo mugdam baay bakoor waxa ka dhacdo doorashada galmudug ka dhacda kugu celiyo mugdam waa iska aamina wax ila jiraan deena la cafiysiina oo kugu lahay waxaan qaadan in deyn la cafiyo horta hal deyn oo laga cafiyo ma jirto shiino lacag yar ay iyaduna ugu leedahay cafis 5 bilyan kuma leen waxaana lagu lahay 4.6 bilyan waa dhamaadkii 2017 qoraalka soo ahay waxaana lagu lahay lacagtaas 27 hay'ad ama dawlad oo kala madax banaan inta la soo ururiyay shanta ugu waaweyn waxa lagu leeyahay waa Mareykanka Talyaaniga Faransiiska waxa ku xigay World Bank iyo IMF حتى percentage إنه كله هاي وكل شيء كرا. China بس أنا قاعد في السعودية يقول لك إسكتشوال أنا سمينا هو الديما أقول لك بقول لي 1 مليون ونقول هاي سير. حتى مركز ليست إسلامت وولد بانك مركز هذا الجو هذا دوت الدين تو حد بلور دقي أما إن الكود عفية 2021 سنة كدبة فبراير دي بلور دقي وحلا صحيحة. أنا كامل أنا كوقف صحيح عندك صحيحة قال كود دكتور هبل قال الدكتور ولا حل له يقال ورقة الدكتور كوقف بس صحيحة ده أدول سي صعد قف كتير ترى دي واحد كلا قرصر ولا سعودي قالنا ديما هاسبركة جودي واتيلا سوبي تكنيكال ووك جروب وحال سمي الله ما ريشنا بس 2013 إيه 15 كده ما بشينا جودي تكنيكال تيم كشغينا دب دبوا مشينا وأنتجنا وصلنا غنا دينا مركز institutions كله financial international financial institutions مركز أيوة كعفية للدين الوصوصي كرالين دولته وحكولها إلى جون وته يجي و باريس جروب كلاب ينام باريس كلاب هي مولتيلاترال سيدا حس قيمة وكلام بحام واحد أقوله وحاليا مركز سين لبضنا إلى العقل ويالا أو شروط داس أو بوحي هذه إيجا بحدينت إيجا سينه لكن أنا أقول هذا نورويا العقل نجيب بحسه وعايز سينه وولد بانك ولا إيجا ترى أنا إنجليز العقل نجيب بحيال سينه بنك هربانة أفريقيا إيجا ترى institutions كامل كدين تو كاترنت مركز كدي عليه وحالة سيكرة دين لبلا لكن كل وجوله هاي والضمان كلها 4.6 كان وح كعفية إلى هذا وحكي له كجره و شيله أنت ويعفيني سواتي أنت راسي عفيس بس تذكر وقلت هل بليون أو مريكا لعقت دولته هنا وحيتري هلا كعفي أنت راسي بدل على العافية مركز لكن روت كل عقد ولي بس في الشر ولا العقد المرايكن نقولها اللي بقولها حوجا يهد افر بقولها حوجا انت رسيه نغتي انت رسيه صار جري ولي بركاس دوت في على كانوا حل العقد اسنا الديمي معي ku baxday balance of payment markii lacag oo Sacuudiga ay soo gali jireen dawladda hor la kabay lacagta qaar kamidna waxay ku baxday ciidamo xal jiilkan hadda aad gud leedihiin lacagtaas ma arkinba lacag kale waxa la diiday la siiyay ma maamulo karaan sababtoo loo leeyahay hadda ريبورك وورلد بانك سراكيشيس نقالوا اي قرار waxay leeyihiin ana kaliya iska dhaaf 75% wadamada aan lacagaha siino 75 xad weyn waay overseas account ay ku dhacaan yaa ka cilnaa Soomaaliya inay ku dhacaan ma maamulo karaan deyn hadaan siino ee ana u maamulay soo kugu maamulaa world bankiga ama madaxdiis waxay leeyihiin 75% lacagaha deynta account banaanka ku dhacaan oo iga laftooda ay qayb ku leeyihiin shilin la ka cafiyo ilaa hadda مجرى لكن بروسيس
in interest-yada ka cafi isku dir jidki waa fiican tahay deyn kalaaba la rabaa world bank asaa raba deyn kale inuu soo qaado oo arinka magaceeda lagu soo qaado marka asugu deyn laguma la markaas wixii lagugu lahaa ilaha kugu lahaadaan dowladahaas kale oo la xawilay deyntaasna asaa kuu maamulayo meesha ay daraynayaan inuu asugu kuu maamulo boqolkii 25 la sheegayana kaa soo gaaraysa inta kale kuma soo gaaraysa haye arrintaas maxaad ku daraysaa deynta horta anigu waxaan ka qabaan kuu sheegaya haye horta marka u horeysa dowladdu waxay leedahay mashaariic horutabyo leh haye bal intaan deyn la gaarin dalkan lacagtiisa aaw horta haye ilaa dollar baanu ka tuuraa bahalkan oo iisoo tuur ya haye dalkan lacagtiisii ilaa markaanu ka hadlayno finance ama maamul lacageed ka hadlayno iyo maaliyad waxa ugu horeeya waxa weeye dalku inuu leeyahay currency lacag isaga uu leeyahay haye taasaa horta number 1 ahayd tan labaad maxamed siyaad barre 2 bilyan buu ka tegey dowladdiisa oo deyna 2 bilyan bay ahayd bis hawadaan ka baxnay waxaa jira waxa la yidhaha force major oo ah hadday dhacaan oo wax ma garanaysaa weyn oo shiddo ah markay dalku dhacaan oo dalkii uusan jirinba deynna laguma yeelan karo lamana muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa faa'iidana waa la fariis galinaya waa la joojinaya halkaa in laga bilaabay ahayd wasaaradda maaliyaddu iyo wasiirka maaliyaddu inuu ka bilaabo war annaga waxaa nala ku lahaa markaan burburay 2 bilyan halkaa ay dhig wixii ka dambeeyey hawadaba waa ka maqnay waana la ogyahay maba yani sharcibaanna ma qabto horta halkaa bahasha in laga bilaabo ayay ahayd dadka loo diray marka dad farsamadaas garanayay ma ahayn 4 milyan 5 bilyan bay la soo boodeen ma intaasana ku leeyahay walaalayaal naga cafiyo si deyn loo helo anuu wasiirka maaliyadda barlamaankan isku qabsanay qodobka koowaad baa laga booday arrinta deynta cafisku waxay bilaabatay dhammaadkii 80kii dowladaha saboolka ah debt relief wax la yiraahdo way jirtay waayo waxaa loo adkeysan waayey institutionskan ama hay-adahan la yiraahdo muxuu ahaa dagaalkii labaad maraykanku samaystay oo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta caalamka waxaa la yiraahdaa international monetary fund iyo IMF iyo kuwan bangiga adduunka la yiraahdo labadaba waxaa iskale maraykan iyo ingiriis iyo anglo saxon baa leh oo lacagta ugu badan leh dhibaatayna u keeneen adduunyadii saddexaad oo dhan iyo dowladihii saboolka ahaa waxaysan bixin karin macna 100 kun baad qaadanaysaa 200 kun 300 kun baa ku fuulaysa sanad gudihiisa soo maaha wixii markii la arkay inay disaster iyo shiddo yihiin oo aan dalka bixin karin yaa la yiri barnaamijka hala sameeyo waxay u sameeyeen marka programyo la raacayo ama sharci nidaam la raacayo oo dowladdu la raacayso annaga 30 sano dowlad maqnayd waxba laguma leh waxay la mid tahay waana mabda caalami ah damaha waxaan anigu sakariye leeyahay ma waxay la mid tahay qofka safiihiga ah ya waxba laguma leh dembi dhaaf ama ha noqoto wuxuu galo laguma laha ama maxkamad lama keeni karo waayo maba aanan jooginba horta halkaa in sheekada laga bilaabay oo la yiraahdo 2 bilyan baad nagu lahaydeen dowladdaad ku lahaydeen waa burburtay 30 sanaan maqnayn halkaa aan sheekada ka bilownay 2 bilyan xataa naga daayay waa maasantahay marka meesha la khalday jidka la khalday kaa weeye ay kaadi waxaana moodaa in propaganda xoog leh oo sidii wax la qabtay loo samaynayo dadka Soomaaliyeed waxaan ma garanayaan masaakiin weeye soo ma garan in la iska khaldo jid ilaa oo la qarda jeexa la marsiiyo waradan uga cali yani aqliga caadiga wuxuu sheegaya war bal intaan deyn la gaarin shilin Soomaaliga iyagii ilaa hadda maba madax banaanin meel waxa naga haysta ciidamo ajnabi ah meel dhaqaalaheeni mal lacagteen wadan haduusan lacag lahayn ma madax banaana completely ma madax banaan waxaanu ka midnahay gobol Mareykan ka mid aan la midna ma madax banaanin waayo dollar baad isticmaalaysaa adoo hadda halkan ka baxayso dollar ma isticmaasho koobka shaah dollar baad isticmaalaysaa waa gartay finish waa maasantahay ana xabsi haye aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo waqtiga waa soo dhawaaday ilaa barnaamijka saxda ah waddankan Soomaaliya waxa shalay dumiye cadaalad darreeye haddeerna waxa ku socdo oo la rabo in lagu dhaqo waa cadaalad darro iyo kursiga aniga kaale igu hay example aan ku soo qabanaya madaxweyne Farmaajo wuxuu rajeynaa Abi Ahmed inuu kursiga ku hayo
axmed madoobe wuxuu rajaynuu suga uhuru kiyato inuu kursiga ku hayo war allah ya war waddankan si dalkeenna annagaa iskale waxaan rabaa inaan soo jeediyo 30 sano kadib waa inaan si dimuqraati ah oo nidaama oo degan oo aan isku doorano oo isku jecelnahay madaxweyne farmaajo maalintii uu madaxweynimada noqday laba madaxweyne oo min 4 sano soo xukuntay aan labada gacnood isqabsadeen koray u taageen sidaasay yidhahdeen haye waxaa la rabaa inuu meeshii meel kasii wanaagsan gaarsiiyo dadka soomaaliyeed oo dhan shakiga maanta qabaan waxa weeye inaysan doorasho xalaal ah oo xaq ah oo fair and free election ah inaysan dhacayn ayay aaminsan yihiin waxaa la rabaa inaan ka tanasulno xukun aan ku dhegno ee aan u jihaysano nabad dib u heshiisiin iyo dimuqraasiyad doorasho xalaal ah inaan gaarno asalaamu calaykum professor haye noo soo gabagabay arrinta lacagta iyo koleba horta waxaan rabaa aniga waagi marka aan yarahay qoyskiina lo ow lahaan jira haye loodu markay habeenkii soo hoyanayso way soo boortaa way soo yeertaa macnaha haye way soo ciidaa haye sacba sacow ka caana yar yahay waa ka qaylo badan yahay markuu soo hoyanayo haye finaaqi ma waxba saasaa la dhahaa finaaqa la dhahaa horta meeshaan waxaa waaye siduu sheegay xildhibaan sakiriye dad aan wax qaban oo meesha iska fadhiya ayaa noo fadhiya marka si ay dadka ugu sheegaan inay wax qabtaan waa sacaas caana yaro ah oo qaylinayo oo soo yeerayo marka daynaa la cafiye daynaa la cafiye daynaa la cafiye wax kale oo dadka loo sheegaa la waaye marka maadaama daynaa la cafiye arrin banaankaa ay tahay oysan arrimo gudaha ahayn haddii masalan la dhaho ammaankaa wax laga qabtaa dadku waa ujeedaan iskuulaa la dhisay dadku waa ujeedaan jidaa la dhisay dadku waa ujeedaan mugta waxaa waa been jidna ma dhisin laakiin haddii la dhaho deyntiyaa nagala cafiyey wuxuuna ay washington yaaliin marka dadkiyaa horta masaakiintaha waxaa loo gelihaa ookiyaala loo gelihaa waxaa caddaynaya suudaan waa dawlad sax oo anagabana taageerta 23 sano ayaa waxay ku jirtaa arrinka deyn cafinta hadda markii la inqilaabay askarta oo nimankii ay yimideen beej cusub loo furay marka horta aniga deyntan asalkeedina qalad u ahay waxa lagu darana soo sheegay xildhibaanku waaye haddana yani waxay tahay maalinba waxaa nagula furaayo waa jabtar taas marka macno male xagga dhig waxaan rabaa arrinta oo sheegay abtigay oo ah oo yiri labadan nin waxay rabaan nin oo ajnabiya inay ku hayaan kuraasta ay ku hayaan dhibaatadu waxay ka jirtaa su'aal axmed madoobe ma asaga ayaa raba inuu uhuru kursiga ku haayo mase cabsida oo ka qaba farmaajo ayaa uhuru hoosgeliyeysa su-aashu waxay tahay soomaalida waxay tiraahdaa dibiga geesaha weyn looda geedkuu ka bixiya markuu ka bixiyana looda daba kacaa war waxaa la rabaa villa soomaaliya inaysan dadka ku qasbin inay addis ababa aadaan inay aadaan nairobi aadaan inay eritrea aadaan inay meel kale aadaan waxaa la rabaa villa soomaaliya inay noqoto geed hoos weyn oo aan shilin iyo wax dadka cuno lahayn oo loo soo nabad doonto arrintana haddii meesha ay tahay in laga qabto aan laga qaban weligeed afkeedu waa furaha dadka soomaaliyeed ma gaarin dawlad laysugu muruq sheegto waxaa la rabaa in la qabto dib u heshiisiin maanta waxaa soo baxday warqadaanaa ka soo baxday UN-ka ka soo baxday waxaa ku qoran bishaan gudaheeda warqadan bishaan gudaheeda yani shalay ilaa bisha hore Febraayo 7deedii 56,000 oo qofood oo Soomaaliya ayaa gobolka Gida kaliya lagu barakiciyay oo ay barakiciyeen ciidamo diyaarada xamar looga qaaday dhul nabad ah dabcan kuwa Kenya waxay imaanayaan marka kuwan ay meesha tageen marka su'aasha marka waxay tahay villa Soomaaliya maxay ka helaysaa dadkeeda inay isku qaxiso marka haddii ninkan oo kale to mataqaanaa Cabdirashiid Janan haddii villa Soomaaliya marna soo qabato ay qafaalato guri shacbiga ku xirato hadduu ka baxsadana wuxuu ku qasban yahay Kenya inuu hoos galo marka Cabdiraxmaan Janan waxaa Kenya hoos gelihay oo inuu Kenya taga soo raaca abuuray villa Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed markay iimaanaysa siday ahaayeen
kolba hore uma dhaafi kartee please sideeda ha ku soo celiso Waa oo mahadsan- ammaanada lagu ammaanaystay sideeda ha ku soo celiso waa Waa mahadsantiin mahadsantiin. waa soo gabagabaynaynaa waa soo haye mawduuca ka hadlayna waxaa umalaysaa inuu meel aan loo baahnayn ba yahay waxaa la yidhi dad oo isku haysta baabu tawxiid cashaadkaa la isku haystaa waxaa ninkaas ku heshiimeyne aan ka hadalno nawaaqidul wuduu waysaqaadka maxaa joogiy hadda waxaa la yidhi sharci iyo dhul iyo dad marka la helaa dowladna si kale sharciga soo qabo laguma sheegan karo dowlad marka waxaa soo baxaysa dowlad maba nihin amala imaanaysa ana marka waxaan ka murmaynaa doorsi udhaca iyo kala saar iyo kan dowladnimo horta saa u naqana ilaa hadda ma jirto aan isku raacna sida oo sharciga marka loo raaco shuruudaha dowlad caalami lagu yaqaan taas aan raadin